السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارت شرفت اللي كسر دواد بيج كنا يوتيوب كعمر شعب وكر وحنا سلا عوضة سلا فرقين دونا وركي ودن بي كوحدة ما يونايتد وركا كي معنا يكوحدة ما يونايتد وحشي إن دافع دنك بديح مالاسيا وداوع مدة هالسنة يبرك بدن وكوم قناي وكسر لابطي ونديار وياي كل ما تصوص عدا إنه صفته وفيزيوثيرابي وكسر بحي. waxaa sidoo kale isla wararka ay sheegayaan in Manuel Ugarte qadka dhexe cusub ee kooxda Man United soo gadatay wuxuu leeyahay waxaan ahay diyaar kulanka kooxda Man United iyo Southampton diyaar ayaan u ahay haddii macallin Ten Hag uu isafayo. sidoo kale wararka ka imaanaya dhankaas iyo kooxda Man United waxay sheegayaan in kooxda Man United ay ka fikirayso soo gadashada la soo wareegidda qadka dhexe xulka Faransa André Rabiot inay la soo wareegaan ay ka fikirayaan maadaama kooxda dhaawacyo fara badan ee seasonka hore ku dhaceen lagana yaabo in seasonkan qadka dhexe ciyaartoydu ugu joogto badankood ay dhaawacyo ku maqnaadaan sida haddeertaan ba dhacday Mason Mount ayaa dhaawac ku maqan laba kulan oo Premier League bis ayuu dheelay kulanka saddexaadna dhaawac ayuu ku baxay marka waxay ka fikiraysaa la leeyahay in ciyaaryahankan André Rabiot oo 30 jir ah ay la soo wareegto suuqa xorta ku soo wareegto sidoo kale waxaa la leeyahay macallin Ten Hag milkiilayaasha cusub ee kooxda Man United Ineos waxay leeyihiin waxay dhaheen enough haddii aad top 4 usoo bixi weyso koob oo FA Cup ama Europa League ama Community Shield aad soo qaadi weyso waa ku daa macallin Ten Hag oo in la burin doono ay u baahan tahay marka soo dhawaada wararkaas ayaan falanqeyn doonaa mar labaad waxaan idin leenahay subscribe to like to share nala dhaafina kanaalka waa cusub yahay waa aragteen channelka waa cusub yahay hala kubciye daafaca bidix kooxda Man United Malaysia sidii loo soo gaday 6 bilood loo kooxda Man United u dheelay hal sano iyo ka badan wuxuu ku maqnaa dhaawac xitaa sawirada kooxda Man United la soo dhigay page-keeda xitaa lagu ma arki jirin asoo macna training sameynaya lama arki jirin waaba la waxa la ninka intuu ka baxay ma dhumin laakiin hadda waxaa la sheegayaa inuu dhaawacii muddada dheeraay uu ku maqnaa uu ka soo laabtay uuna hadda diyaar u yahay inuu buuxiyo booska Luke Shaw oo ku maqan sidoo kale asigana dhaawac waa ogtiin Luke Shaw nin lagu tashan karo ma ahan asigoo 6 bilood dhaawac nooga maqnaay ayuu maalin horeeto Euro-ga aaday wuxuu yiri waa dheeli karaa hal kulan oo soo dheelay markii Ingiriiska la soo reebana dhaawac kale wadana ku sii maqan yahay oo xilliga soo doona oo soo laabo doona lama yaqaan marka dhankaas bidix waxaaba naga haysataba niyo habaaraba naga haysato balaa naga haysato Malaysia dhaawac Luke Shaw dhaawac marka kooxda Man United waxay ka fikiraysaa la leeyahay inay soo gadato daafac kaleeto oo dhankaas bidix uga dhigo budgetka u gooy waay marka maxay idin la tahay inuu soo laabto ciyaaryahankaas kooxda Man United ee Malaysia inuu soo laabto ma waxay u tahay kooxda Man United arrin fiican oo Malaysia ma la dhirsin doona mise asigoo jooga booskaas Dalot uu sii ciyaari doona waa ogtiin booskaas marna Dalot ay buuxiyo marna Mazraoui ay buuxiyo marka booskiisa ma line up ku soo biiri doona mise keedka ayuu ku jiri doona sidoo kale ninkan Ugarte la leeyahay macallin Ten Hag waa taqaanin ciyaaryahan ku soo gato hore kama soo safo hawa hal bil training uu diraa wuxuu leeyahay caalamita malihid kooxda ku caalamita matid trainingkaas hal bil soo qaada kaliya kadib kooxda line up lagu soo diraa oo hadda wuxuu ku haysto wuxuu ku haysto dalay laba kulan lama safar kulankan saddexaad la soo safar bas marka ma ku soo bilaabi doonaa oo kalsooni ma siin doona ciyaaryahanka maadaama kulamadii Premier League xulka Uruguay uu soo dheelay oo masa wuxuu dhihi doonaa wali caalamita malihid oo keedka ku hayn doona oo Casemiro iyo Maino iyo ku soo bilaabi doona iyo Bruno ninka waan taqaanaa Ten Hag isku haleys ma laha sidoo kale waxaa la leeyahay macallin Ten Hag waxaa wali dhaawac uga maqan Luke Shaw Mason Mount Højlund rag badan waxa uga maqan dhaawac kooxda Man United xilli kasta waxaa dhici karto line up-ka ama ragga fiican oo hadda caafimaadka qaba mid kamid inuu dhaawaco sababtoo caalamitada ninkan oo ciyaartoyda u tiro waa caalamita adag garoonkana lagama arka caalamitaas adagoo nimanka haddii caalamita adag galaan waxaa la rabaa garoonka inay ka muuqato niman caalamita oo tiimka kasoo horjeeda nimanka orod badan oo ka banooni fiican inay noqdaan wixiina lama arko ciyaartoydina maalin walba dhaawac ku maqan tahay midna waa midaas sidoo kale waxaa la leeyahay macallin Ten Hag nimankan Ineos la dhaho oo hadda maamulka kooxda la wareegay waxay dhaheen haddii aad top 4 usoo bixi weyso ama koobkan yaryarka mid kamid ah soo qaadi weysid waa lagu cunayaa وهذا وحاب اللي هي وحقوقان كجارين إلا جناي إن جانس السيو هدي جنايو
oo Premier League dhibco fara badan sii dhumiyo hadduu 3 kulan 6 dhibcood ka dhumiyo 9 dhibcood oo 6 dhibcood ka dhumiyo hadduu wadadaas ku sii socday leeyihiin oo dhibco fara badan uu dhumiyo ilaa bisha koowaad waa la burinaa oo ninkaan oo tababar ku-xigeenka looga dhigayo kooxda kale yaqaano ciyaaryahan hore ah tababaro looga sii dhigay intuu season-ka dhamaanayo hadduu macnaha wax ka bedelana oo natiijooyin fiican keenana booskiisa uu joogaa marka Mr. Rasiga xitaa wuxuu arkaa tababar ku-xigeenka xitaa Janis uu arkaa oo ninkaan inuu shaqada wadi waayo la buriyo oo asiga booska aan ku fadhiisto rabaa kadibna hadhow budget fiican la siiyo markii sanadka season-ka dhamaado xogaa wax qabad yar sameeyo budget fiican la siiyo saas kooxda uu ku qabsado rabaa marka Ten Hag ma madax adeeg wadi doonaa oo kooxda macnaha sanadkii la soo dhaafay iyadoo la leeyahay shaxda sanka bedel ama Maguire ka saar shaxda Rashford benji geli ayuu madax adeeg haddana la soo laabtay oo saa ogtihiin Garnacho keedu ku haya 3 kulan oo la dheelay Premier League 3 kulan ba Garnacho keedu geli waa garabka ugu fiican ee kooxda Man United waqti hadarkan jooga Rashford 3 kulan uu dhiirsay xiriir oo suuqa ciyaarta ku soo bilaabo ku dhameystay hal shoot nima ridin hal gool inuu dhaliyo iska badaabo 3 kulan si hal shoot u ridin ninkaas oo garoonka ku dhaxaysta sidoo kale waxa leeyahay Casemiro garoonka ku haysta oo 4 saac line up u dhiirsiya Maguire saasoo kale waxa waa 2 kulan oo hore u dhiirsiya kulanka dambe adeertan delight oo keed u galay marka ninkaas lama garan karo wuxuu damacsan yahay marka haddii uu sidan ku socdo oo macnaha taageerayaasha warkooda dhageysan waayo la taliyaashiisa warkooda dhageysan waayo tababarayaasha kale la shaqeeyo warkooda dhageysan waayo waxay u baahan tahay ninkaas inuu bixi doono Premier League waa taqaanaa naxariis ma taalo kooxda ugu yar 3 dhibcood ka qaadanayso haddaadan macnaha aadan shaxa ka shaqeysa aysan noqon marka sanadkan hadda la soo dhaafay oo FA Cup qaado ku fakado last minute FA Cup oo City ka qaaday oo ku fakado maahane sanadkan maba noo sii joogleen mar raba la cun laayba marka khiyaarta maxay idin la tahay kulankan berri 8 saac iyo bar duhurnimo ka dhici doono guriga kooxda Southampton ee u dhaxeeya Man United iyo Southampton maxay idin la tahay natiijada inay ku soo dhamaado doonto commentiga nala wadaaga sidoo kale Ten Hag macna Ten Hag shaxda uu ku soo gali doono idin la tahay sida video ku sheegnaa anaga maxay idin la noqonaysaa shaxda uu ku soo gali doono nala soo wadaaga oo Delight iyo Mazraoui iyo raggaas Ugarte iyo Garnacho iyo Boss ma ka heli doonaan line up maadaama kulamadii hore 3 kulan la soo dhaafay aysan Boss ka helin intaas ayaa ku soo gabagabay sidoo kale waxa la leeyahay nimankii Man City ahay oo idin ka hilmaamay waxa la leeyahay maxkamadeyntoodu waxay bilaabanaysaa bishan ayay bilaabanaysaa oo nimankaas haddii 115 dambiyo lagu soo ogaal leeyahay haddii dambiyadaas lagu helo waxa waaye dhibco fara badanna waa dhumin doonaan waxay kaloo dhumin doonaan Premier League oo koob hore soo qaadana shakiga geli doono warar geli doono oo in laga celiyaa dhici karto in Serie B loo celiyaa dhici karto laakiin nimankan waxaas niman kala jecel ma buu ekabo ciyaartoy cusub maalin walba soo gataan kuwa hore u jooga meel ma socdaan tababarahooda Pep Guardiola meel uma socdo waxa la arki jiray koox markii dambiyo lagu soo oogo dambiyaasna ay gashay ciyaartoyda inay kala dhuntaan tababaraha inuu baxo meesha lagu kala cararo la arki jiray waxaas nimankan ma kala jeclaba marka ayagana maxay noqon doontaa sida Everton oo kale maxnaha xukun ku dhici doona bas nimankan lacag ay haystaano waxa waa nin lacag leh jeebkiisa isku furtaa maqli jireen waa laga qalay doona marka qeyrta waxaas wararkaas wixii ka soo kordhay arki doona la socod wanaagsan page-keena mar walba isha ku haya maalin walba marka ugu yaraato 2 video oo ku saabsan kooxda Man United iyo kooxaha kale ayaa idin la soo wadaagi doona anaga ilmaaminaa mar saddexaad like iyo share iyo commentiga YouTube-ka page-kan nala kubciyo insha Allah taageeradiina wax ku heleynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh